farmaajo oo lagu amray in uu dalka si degdeg ah ugu soo laabto xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo laba daraf u kala jabay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gadaal ka riixaya damac halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. warbixintan ayaan ku qaada dhigi doonaa ilaagsaar muuqaalkan oo loo wadaag saaxiibadaada si uu meel fog u gaaro, sidoo kale nagu soo bir si aad kaga mid noqoto saaxiibadeena una hesho wararka xaqiiqada ku saleysan. mahadsanid. waxaa maanta lagu ballansanaa in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa, balse kulanka ayaa u baaqday sida la sheegay kooram la'aan. kulankii golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maanta ayaa waxaa ka muuqanayay habacsanaan aad u ballaaran, waxaana soo xaadiray 103 mudane oo ka tirsan golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo ka dhigan in uusan soo buuxin kooramkii uu kala fadhigan ku furmi lahaa. sidaas daraaddeedna 103 xildhibaan ee yimaaday fil Hargeysa ayaa dib ugu laabtay guryahooda. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abshirow ayaa sheegay in loo yeeri doono dhammaan magacyada xildhibaanada soo xaadiray iyo kuwa aanan soo xaadirin, lagana qaadi doono tallaabo la xiriirta xuquuqdooda, islamarkaana xildhibaanada aysan ku xuquuq ahayn. madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ah mudanayaasha looga yeeray in ay soo xaadiraan kulamada baarlamaanka Soomaaliya. hase yeeshee waxaa la sheegay in Farmaajo uusan ka soo jawaabin dalabyadii hore loogu diray, ayna u badan tahay in laga jaro lacagtuu ku qaato xildhibaannimadiisa. xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulankan midkii ka horreeyey ku kala qaybsamay mooshin ku aadana muddo kordhin ay golaha keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada, kuwaas oo soo jeediyey in muddo xileedyada baarlamaanka xukuumadda iyo madaxweynaha laga dhigo muddo 5 sannadooda, balse soo jeedintaasi ayaa la kulantay diidmo aad u weyn. muddo kordhinta dowladda hadda jirta iyo dowlad goboleedyada ayaa ka soo bilaabatay shirkii madasha wadatashiga qaran, kaas oo ay Puntland ka maqnayd, isla mar ahaantaasina heshiisyadii laga soo saaray ay ka mid ahaayeen in muddo 1 sannadooda loo kordhiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo ay sidoo kalena min 1 sano ku darsadeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya. diidmo la sii filayay ayaa ka yimid dhinacyada Farmaajo iyo madaxdii badbaado qaran oo ay ka mid yihiin madax iminka dowladda xilal sarsare ka haya. diidmadaasi kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in uu soo abaabulay xildhibaano kuwaasi oo mooshin u bedelay qodobkii muddo kordhinta ahaa ee shirkaasi ka soo baxay. hase ahaatee falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa rumaysan in qodobkan uu gadaal ka riixayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse uu yahay mid bilowgaba abuuri kara qalqal amni iyo mid siyaasadeed. madaxda isu soo badbedelay dalkan Soomaaliya ayaanan waxba ka baran dhibaatada ay abuuri karto muddo kordhin, taas oo la sheego inay Soomaaliya geysay meesha ay maanta joogto. Farmaajo oo xilligiisii la kulmay muddo kordhin uu la kulmay diidmo abuurtay gacan ka hadal iyo dagaal uu dhiig ku daatay oo ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho. hase ahaatee idadilo noocaasi la mid ah ayaa mar kale laga dareemayaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waa sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo kuwa amniga.